gelin laakiin eedo nolosheeda iyo nafteeda dambi ka gashay markay nin ino gumeeda ay weligeeda gabar nin ku xumaan jira abaa iyada ugu horeysa gabar la xumeeyo 10 sano markii la bahdilay nafteeda dambi ka gashay kan galay iga wareega qadarta ma waxa u taqaana walaal macaan qof uu dambi galay qadar baa ku dhacay oo u jeedaa maxaa tiri dhibaataysan inay tahay u jeedaabay maxaa tiri inaad ku cilmanaa ku dhacday dad qadar ku dhacday inay tahay u jeedaaye adiga laftirkaagu sabax ka yihiin adeere walaal quruxdaydi dhageyso qadar waxa la dhahaa qofku markii intii mowtal qafl ku soo boodo dhinto wiil ka dhinto gabar ka dhimato ilmo ka dhintaan gaar la rogmada qadar la dhahaa laakiin tan ayada ninka u yeelshay ayada u ogolaatay ayada saan bahdilka ayada ogolaatay wax qadar la yiraahdo meesha ma yaalaan qadarta ilaahay ha u nisbaynina wax walba xun nin iyo naag qoriyeynayo isnacay ilaahay ha u celinino waa qadar ha oranina qadar ma ahana waa ogolaashaheeda halow isma qalma jiraa aqaldan abay fiiri dadku isku mid ma aha dadna ka tagaan dhibaatada dadna markii ay xaalad xun gaaraan bay ka tagaan marka dadku isku mid ma aha qofku marka taasaa ku dhacday wallaahi waxaa aqaanaa gaalkacyo gabar aan isku cidnahay oo inta ninkeeda la guursaday naxdintay ka qaaday iyo xanuunkay ka qaaday wallaahi say sariir u saareed u dhimata aqaanaa iska dhaaf wax kale qofku wuu nixi karaa bini aadam qofku wuu nixi karaa balaad barasharaa jiro maya gabadha maxaa ku dhacay baa tiri intuu ninka hee gabadha ninka waxay boosasay lahayd qaadkay gadi jirtay laba boosay lahayd intuu gatay uu gabar guursaday arooskiisii ayadoo joogta meeshii maqsinkeedii qaadka oo qaad u soo degay arooskiisii loo soo sheegay madaxa dhiig uga furmay isbitaalka la dhigay 4 bilood ay taalay waa laga soo saaray guriga la keenay bara la seexoogaa noqotay way joogi jirtay 2 sano nooleed oo sariirta iyo musqusha u dhaxaysay kadibna way dhimatay marka qofka amar ilaahay way ku dhici karaa hadda sababteeda la saaray waa la dhigi karaa hadda isna gabadhaana hadda waxa dhici karta xanuunadaas oo kale inay ku dhaceen aba qofka bini'aadamka uu nixi karaa qadar waay waxan qadar قدر واي قبل والفمين كرا بجبنا كرا على قدر قدر دماش لبير مديه كرا مدة بس ناس ترى مدة بس ريار باينا ده مدة بس مدة بس دماش محل كرا والله ما يبغى لقى هريا هالدا ولا هريا انتصار كل جاي السنة جاني جه هريا كوسع جاي السنة جاني ويدي أنا عصر يسوي ساكن كل جميع قعدت كوضع والله هذا يفهمي كل جيان قاعد كوضع قلامي أنا واربا كو قلامي هذا بغرته هذا habro wada siday niman sariiraha ugu saarnaayeen waxay leeyihiin haa nacasulayso waa xaasidad way xaasidad miihiye inaad wallaahi qofka qalbi fiican ma lehe gabar la xumeeye markay aragto waa dhiigaa ku kara saas wallaahi bilaahi anigan inay iyadu isxumaysay baa hadda ciil iga hayaa oo waxaan u qalmin cimrigeeda gelisay anoo iyadaa ciil iga haya sababtoo ciilka ii haya wax waaye ayadaa ka ogolaatay nin xun oon u qalmin inuu bahdilo ayadoo magac ترى الأجل أو عان أيوة ده نايا نسكشي شمود نايا حاجة وسط دقيسو مالله يقرمات قرب كوة تاي ناشيلا أي حاجة ينادر دقيسو الله إله باي قدك مالله يقاس إله باي أنا عصر يسوي وكان عيمنا ويجو كاتك تروح تري إلهي باي يحب مالله يقدك جاي ليه مالها دقيسو هي كسر واحد هذا ويق wadada highwayga isug highwayga inaad gashaa waa qarad laakiin qofku wuu geli karaa gaarina wuu shiiri karaa qadarta taasaa la yiraahdaa qadartan aad diidayso horta jooji guurka iyo qofka ku dulbooday oo gabadha dardaray mise ninbaa intuu nacay naag ka raacay hadduu naco naag ka raaca meeqaa naag laga raacaya maxeeba das is program way deal way ninkan wuxuu go'aansaday inuu naagtan ka tago naag kala guursado ayadana waxay ahayd maalintuu damcay inuu saliida u qiyaaso inay saa inta u fiiriso ee tiraado anaaba qalad galay shalay oo garbasaarkeeda dhinaca kale u gadisatay ahayd oo xasharaadka iska jafto haddayna qadar ahayn ma ogaali ku dhacday soo ogaal la'aan kuma dhicin ma ogaal la'aan maaha way ogeyd ikhtiyaarkeeda way ogeyd kas iyo maanay u ogeyd wayna fadhiday
هذا ما مقلي ساكن هذا ما عن سوق هذا بديش ده قولونك lagu qulaamiyo qolooyinka yeeri kala ogow warka ma la siisan kadib waxa meeshii dad badan jooga نعيم الله اللي جاي إن هذا دقيقة السوق إيد إلهي بان كوكو دارش نعيم إنتاج جشيد قبل ما يشي هسا صادقتي إنتاج جشيد هسا أي نينكا أقاطي بل برشيد دقيسي تضمنون عن دقيسي بالغيا بين كل كجيراني I'm sorry أبايو هيستاس 6 سنة كهري قاعدة برنسيس يستاهل واقعهم xalay maxaa gabadha loo bahdilaan ka hadlaynaa waxay sheegaysaa kuwii kala go-een iyo rabay in xiriir ku soo gaabto gorbeed waa hore dhabaadma هذا وي عرفت وي أوجد وي fanaanada ka codsatay waxa ka codsatay wariyaha nimca sabriya ii qaadayso waraysiga soo daawa soo dhameystiran waa soo daawaday dhageyso eedo xilligaas waxay dareentay kuwii kala go-een iyo rabay in xiriir ku soo gaabto daas bidayto dida la isdilay baa la kala tagay kadibna waa la isku soo laabtay geeyo sanaag maygeedan aa kululaynaysaa waxa ma qabtaan inaan dadka Soomaaliga loo qoranaa anaga qornaa geeyo maygaaga xoog ku qaadanaaga ilaahay ka geeyo meegaaga jiido in adeer jiido islaamahan kullu igu weyn waa iska ixtiraam daawa ayeeyooyinka ay baliyo ku soo hawaari laakiin waxa ma fahmayaan hawaarka inaan toos uga qaato garanaysa waa islaam dhamaantiin horta dad wada jeclaha meesha saaran ilaahay sharfo abaayo horta mowduuc waxa ku soconay banaal iyo fanaanada maxaa isku keenay maalintii la balabinayo gabadhaas in la keeno gabar fanaanad anagoo qolka maxkamadda joogna oo la falanqeynaayo macal gabadhu ninku guursaday macal heesta macal maalintay bilaabeen noloshooda falanqa aan ku jiidnay waxaan imaatay gabadhii ninku qabay gabadhiina waxay tiri aniga halayga saaro reerkan booskooda kuma jirin gabadhaasoo la furay baa ninkaas helnay waxban aniga gabadhaas uma yani ciil iyo caro iskuma hayno iga dhaafa falanqada umul baan ahay haddaan dhalay ma fahantay hal bila beriyaa umulanahay dhahday halkaas gabadhii way is cadaysay gurina inaysan ka dhicin oo ninku guri ka dhicin bay sheegtay warqadiiba ee banaan usoo dirtay halkaas markay tiyareed ku baxday anaga waxaan ahnay briefs baan u baahannahay istaahil waa inay meeshaa noo imaato waa inay wixii ifka ku dhacay noo sheegto maxaasaa u fool sameeyey gabar yaro qurux badan bay ahayd rifrifkan iyo daruuftan ka muuqata yacni ninkii ay kala tageen dartiis mee umrigood waa inay noo imaato anagoo halkaas joogno abkay reer jigjigaa noo imaadeen gabadhan keentay oo soo hoday oona usoo sheegin dhahday waa lagu rabaa horta waxaan dhahnay waan waraysanayna anaga waraysiyaaba ka rabnay fiiriya meesha caawinaad ba oolin gabar la dhaho habboon oo fanaanada oo reer jigjiga ah oo fanka iskula jiri jireen oo waliba riwaayada dhigi jirtaan gabar ma faloo garan laakiinse baa noo imaato dadka qofka maxkamadda joogay away waxay tiri gabadhaan anaa saaxiibtay tahay anaga intaad kula soo maagnay gabadhaan way dhibaataysan tahay ka daaya falanqadaana ku muujinaysaan brisiis waxa waaye horta maxaa dhifay oo wejiga maxaa ka duurtay oo saas markaan aan waxay tiri waagii xagga jigjiga joogtay kiniinka big power cuntay kadibna kiniinka dadka biyuu geliyaa waa laga daaweeyey xataa waxaa la geeyey turkiga waddan kale la geeyey dhahaysay laba waddan baa la geeyey nolosha halkaasay ahayd ninkii markuu ka tegay way isla hadashay gabar iska aamusan waaye dhibaatadeeda ma sheegato sidaan way anagoo meeshii marayna gabadhii emotional bay naga dhigtay waxay tiri brisis way dhiban tahay dadka hadla ma ahan caawinaad bay u baahan tahay garab istaag bay u baahan tahay dumarka Soomaaliyeedu gabadha inaa garab istaagno waay haye orod noo keen ma wici kartaa haa waa wacayaa bay tiri way baxday markay baxday way soo wacday waxay tiri brisis way isdiyaarinee ma fahantay oo way idii imaaneen markaas anaga maxaa ugu yeeranaynaa inaa maxaa la dhahaayay markii la waraysto kadib brisis dee si maaragtay gobonii qof gobol loo garab istaago ma ahan war brisis baa tugsanaysa kusoo tuura ma ahan cimaamad loo diyaariyo shaashada laga furtiyo falow la siiyo yacni qof fanaanada oo u qalanta oo magac dheer leh oo inaysan maxaa la dhahay naag oo nin ka tegay u dhutinayn inay tahay inaan dadka tusno baa anaga waqtigaas diyaar u ahayn heestana waan falanqaynaynay oo waxaan dhahaynay kuwiin MMS naagtii dumarland meel dheer ka keentay bay magacii kusoo dari weysay halkaasna anagu u liiro ka wadanay oo dhanka dumarlandnimada ama fahmaysaa in kuwiintii la xuso halka ayadoo sheekadii maraysa gabadhi way baxday waa keenaya bay tiri gabadhana caawinaad bay u baahan tahay manaal oo bartaas fadhisa ba ilaa qolku galabtii buu sii furnaa fiiriyaa makhribkii allah 2 saac laga gaarayay manaal waxaa laga dhaadhiciyay manaal gabadha caawinaad bay u baahan tahay manaal waa lagu keenaa islaamo kaloo reer jigjiga abaa imaadeen annagaa keenayna gabadha caawiya ma luuqa loo galay manaal wadabsiyaa laga qaatay manaal marka reedaa markay meesha soo fadhiisanayso qolkaas ani ma arkin qolkee oo gabadha leedahay naa fadhi lagu caawin lahaa yacni just waxay u malaynaysaa gabadhii oo wadkii laga soo dhaadhiciyey oo qoftii lasoo quraamiyey in la keenay markii dambena manaal codka waa kan isqabanaysa laakiinse anigaas waxaan diyaar u hayna gabadhaas inaan caawino oo saboodno oo maxaa la dhahaayo oo shashada ka qurxino oo cimaamad usi loo diyaariyo oo la waraysto warkuma idin dhacay hadda
geenya beriyahan saas meel kasta u geeyo wareegsan fahmaysaa geeyo meesha misunderstanding inay ka jirto insaar baa u kaadi fiiri misunderstanding inay meesha ka jirto waa sheegnay laakiin la hadalka balaaq fiiri erayga se u tiri baa qaldanaa waxaa laga yaabaa Yuroway inuu taasa languageka dhihin saa iska Yuroway yahay maadaama sug geeyo sug ka sug ba kasaan dhamaysan waa soo kutina dhegeyso geeyo manaala u imaana geeyo waxaa markuu rabtaa maanta inaad dhegeysanayo manaal kafii maya manaala usoo gudbayaa may manaal gasoo ayadoo gudbin ogeyd maya geeyo ani waa iga isafir ani fadhisaaka adi dharka buluugan waa necbaa moogta geeyo waxba hay maqbo waa isognahay dhegeyso de horta waxa abaayo ina cabta waa please isognahay please waa ku jeclaa geeyo beed wala kula markii khadaba ay weydiisay oo la yiri gabadha waan kuu keenaynaa oo ay aragtay gabadhu inay ka dhacsan tahay manaal waa naag weyn waa naag reer magaal waa naag qolka taqaana maxay isku kala bedel way arki weyd meesha inay wanjalaad ka jirto absolute ayaada xanta dadka ku aniga xataa heshiiya manaal xanta taas dadka waa ku heshiiya fiiri habrayo manaal xanta aniga dadka ku fiiri heshiiya manaal waxaa la rabaa inaad tiraahdo berisa baa soo dhawow fanaanadeeni baa tahay qolkaa noogu imow shalay meeshaasaan kugu falanqaynaynay waxaan idhi ma gabadha naloo keeno gabdhaan kuu soo dirnay gabdhihii ma kuu imaadeen maxay ku dhaheen inay absolute wadadaas martaa la rabay manaal ma aqaan maalintaaseeto ma toddobaadkii bay ku jirtay ma ciyaalkaa ka alqaylinayo fasaxyaa lagu jiraa manaal wixii ka qaldaman waa inay imaato waa inay sheegto wadadii gabadha la rabay inay kula hadasho qof kastoo bini aadan hadda bersis style iska dhaf gabar fanaanada oo geyga Soomaaliya dhan laga yaqaan xataa ilaa Soomaalida taa maxay toddobaadka Sacuudiga hadda kor ugu yiri toddobaadkii mar hore iba dhaafto toddobaadaba haysato naa suldaamada saasadi suldaamada gabar yar waaye sawirkeeda wajiga ka saaraya dad kale wow dhegeyso suldaamada ha laga fogaado ha laga maya fogaado suldaamada abaa iyada xanta naftarkeeda manaal ku heshiiya dhuxul shiilato dhuxul sidata iyo anyax shiilato way isku baahan tihiin xanta dadka ku heshiiya manaal abaa qof bini aadan waaye markaas waxbaa jira ma fahantay laakiin manaal markii dambe way isqabatay laakiin hadalkii ay rabay inay kusoo dhaweyso uu ka yara qaldamay manaal waa inay noo imaato nolosha ku tiraado warsaasay waxay iga noqdeen teleefanada lagu badiyey maqaylada laga badiyey wax la jira dee meegana waa idin siyaada u mahadsantiin inta ay dhegeysateen kolba ana xanta yareed ay ogaa baan la